بسم الله الرحمن الرحيم قدوميها قولها شعبك قدوميها اللباد يا أقل كسره رئيس وزراءها إن قولها وزير ردا قدوميها قبل كبنادر طلياشة عيدا كقلب كسيدة حلبان هذا لبضة قوله وفدك وعليه إنه جاي يمد دولة جيبوتي وهو جامين أيان وزير كجاشانديكا يو وزير كإسقارسينتا إن الله سعدان طلياشة عيد ماذا يو عيد ماذا محمود حربي محمود حربي واسكول كان دكسر ده حكى بحي سفير هذا يدبلوماسينتا هل كان نلجوجه حوالده وابري iyo hawlada horseed kooxda Bambeyda halwadeennada golaha gobolka Banaadir bahda saxaafadda dadka shacabka oo halkan la jooga iyo guud ahaan dadka na fiirsanaya waxaan ku salaamay salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh awa habeen farxad leh wa habeen qiiro badan waxaan isleeyahay caawa inay la mid tahay kooda luulyo 1960kii inkastoo aan arkin oohin iyo farxad badan iyo soo jeed iyo aysan jirin laakiin kullayba waxaan isleeyahay in wax badan oo qiiro ah ay kulligeen ayna wada hayso dhowr casho ka hor waxaan u dabaaldegnay 26kii Juun maantana waxaan u dabaaldegaynaa maalintii midnimada Soomaaliyeed iyo xorriyadda gobolada koonfureed oo ay ka soo wareegtay 58 sano hambalyo ciid wanaagsan guud ahaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ummad walba waxay leedahay taariikh astaan iyo maalmo uu hayaankooda uu ka soo bilowday taariikhda jiilka ka dambeeya uu u gudbiyo dareenka wadannimo iyo xilka qarannimo uu noqdo mid qori isku dhiiba oo ku dhisan hab dimuqraadiyada ummadda Soomaaliyeedna waxay soo martay hayaan dheer oo ka soo bilowday waqti aad iyo aad u fog marxalado badanna ay soo martay mirihiisana la helay 26kii Juun iyo 1 Juulaay 1960kii sidaas awgeed xuskan iyo dabaaldegan macnihiisu uu weyn yahay waxay tahay inaan dib u jilecno aan dib u milicsano hayaankeennu halka uu ka soo bilowday jidka dheer uu soo maray halka maanta uu joogo iyo himilada mustaqbalka ee aan higsanayno insha Allah waxa xusuus mudan in meesha aan hayaanka uu ka soo bilowday ay ahayd meel aad iyo aad u qurux badan iyo maalmo aad iyo aad iyaguna u qurux badnaa halgan sharaf leh oo dhalay xornimo midnimo iyo qaran Soomaaliyeed oo mustaqbal horumar la tiigsanayo waxa kale oo inoo muuqanaya in hayaankeennu uu ka mid ahaayeen maalmo aad iyo aad u adag oo u dhib badnaa xambaarsanaana dhibaatooyin fara badan loona baahan yahay inaan casharo aan ka baranno dabaaldegu waa shiidaal aan qaadanayno ina tusayana in dadka qaran xor leh calan iyo cod buuxda ama cod maxaan ku raahdaa cudud leh abuuray in ay awood u heli karaan ama awood u leeyihiin inay mid ka wanaagsan ay abuuraan oo ah dowladnimo iyo qarannimo buuxda xuska maalmahan gobonimada wuxuu na barayaa in haddii sidii dadkii hore shalay ay gacmaha isu qabsadeen ay dhaliyeen xornimo haddii maanta aan isqabsanno gacmaha inaan dhalin karno xornimo mid ka wanaagsan mustaqbal wanaagsan aan ku faanno jiilka naga dambeeyana ee naga dhaxlaan waxaan hubaa in jacaylka walaalnimo ee ka dhaxeeya ummadda Soomaaliyeed uu yahay mid aan weligiis duugoobayn dhib kasta oo la soo maro ma baabi'in karo midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed waxaa jira wadamo badan
oo dhibka aan soo maray haddana weli aan lumin midnimadoodii iyo qarnimadoodii aan lumin walaalayaal maanta waxaa xusid mudan in ummadda Soomaaliyeed ay yeesheen dawlad sharaftoodii iyo karaamadoodii u taagan habeen iyo maalin inay soo celiso waxaan nahay dawlad ku howlan hirgelinta iyo xoojinta ammaankii iyo nabadii dalka Soomaaliyeed uu lahaan jiray waxaan idin sheegayaa sidaas darteed waxa dawladdaani aqoonsan tahay in heerka aan rabno inaan gaarno aynan ku gaari karin kala qaybsanaan iyo midnimo la'aan wadajir midnimo iyo cududeenna aan sugayno ayaan ku keeni karnaa waayaha cusub ama kula tartami karnaa caalamka taas ayaana waxaan ku noqon karnaa waxna kula qaybsan karnaa caalamka iyo dawladaha gobolka maxaan ku raahdaa aan ku wada noolnahay walaalayaal dhowr cisho ka hor waxaan dabaaldegan walaalayaal waxaan idin sheegayaa maanta waxaan maraynaa meeshii aan maraynay 60kii waxa ay ku kala duwan yihiin oo kaliya maanta xaaladeennu waxay taagan tahay meel dadkeenu ay ku kala qaybsan yihiin meel dalkeenu ku kala qaybsan yahay meel ay jiri karto faragelin ka faa'iideysanaya kala qaybsanaanshaheena waxa loo baahan yahay in aan ka baranno wax badan xaaladda Soomaalida